gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa kulan gaar ah la qaatay ururka haweenka gobolka Banaadir oo ay hogaaminaysay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Jawaahir Barqab. kulankani waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaasha ururada haweenka ee 17 degmo ee gobolka Banaadir iyadoo ujeedka kulankani uu ahaa sidii loo xoojin lahaa barnaamijyada kala duwan ee lagu taageerayo dhiirigelinta haweenka Soomaaliyeed iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen mashaariicda kala duwan ee lagu horumarinayo bilicsuulinta caasimadda iyo sidoo kale dib u soo kabashada dalka. kulankani oo dhowr saac qaatay ayaa gudoomiye Cumar Finish waxa uu warbixino kala duwan ka dhageystay qaar ka mid ah gudoomiyaasha ururada haweenka degmooyin gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka. warbixinadaasi oo quseeyay talooyin ku saabsan sidii loo xoojin lahaa barnaamijyada kala duwan ee lagu horumarinayo caasimadda iyo sidoo kale sidii fursado wax ku ool ah loogu abuuri lahaa haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda. gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab oo kulankani ka hadashay ayaa uga mahadcelisay maamulka gobolka Banaadir sida ay uga go'an tahay dhiirigelinta haweenka. waxba lagu sheegi maayo wadanka kama bixin waxa tahay qaamuus dalka joogay indhahaaguna ay qabanayaan waa mid ka sababta caawa inaan gurigaaga nimaadno. waxaan anagu ballan qaadaynaa inaan kula shaqeyno hadafkaaga siyaasadeed inaan kula meelgeyno inta aan maaragta caafimaadka qabno ayagoo buko oo xanuunsan ayay shaqeynayaan ayagoo maaragta baahan ayay shaqeynayaan waa daalnay ma naqaano habeenay maalin dalkeena u shaqeynaynaa. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu tilmaamay in maamulkiisa ay ka go'an tahay dhiirigelinta haweenka Soomaaliyeed iyo sidii haweenka loogu abuuri lahaa fursado wax ku ool ah oo ay qayb uga noqdaan horumarada kala duwan ee ka socda dalka. sabab aynaan usu warsan oo maxaa noo tala oo mataqaanaa amnigii tala noogu ah oo nadaafadii tala noogu ah oo horumarkii tala noogu ah inaynan isweydiino wax meesha ku jira ma tahay ma aha wax meesha ku jira waxa waaye waa inaan isu nimaad waa inaan tala wadaagnaa waa inaan yacni tala ka yeelanaa magaaladan aan ku noolnahay iyo dalkan aan ku noolnahay oo magaalo kale aynaan lahayn oo dal kale aynaan lahayn yacni sidaan amnigiisa u hagaaji lahayn nadaafadda u hagaaji lahayn isdhexgalka iyo wada noolaanshaha bulshada u hagaaji lahayn caafimaadka u hagaaji lahayn waxbarashada u hagaaji lahayn akhlaaqiyaadka yacni iyo tubta toosan aan ugu hagaaji lahayn bulshadeenay u badkeen. waxaasoo dhan ayaa ah waxna laga sugayo. haddii marka intaasna la sugayo oo ay xaqiiq tahay in intaasoo dhan naloo kaga fadhiyo soo qasab ma aha in aan isu nimaad isxoog wareysano la tala wadaago markaas talooyinka iyo xogaha aan helno yacni markaas talooyinkeena aan ku dhisno. Nuur Saciid Taalleesin TV magaalada Muqdisho.